بسم الله. maanta waxaan u kala garnaqaynaa labada maqayn oo walaalaheena. mid wuxuu leeyahay sida tan waqooyi saanay leeyahay koonfur baa soo booday iyadoo saanay leeyahay labada waa dhageysta awooyaashii waxay dhihi jireen ilaahu gar eexo ha nagu deeyo ma garatay marka horta marka rabtid inaad ka hadashid koonfur iyo waqooyi waxay kala aaminsan yihiin yani waxaan la hadlayaa dhalinyarada ku kordhay qofka dhalinyarada ku koray waqooyi Hargeysa ku koray tusaalahan oo 25 30 ku gaaray iyo qofka dhalinyarada ah ee xamar ku koray oo intaas kala gaaray 25 30 waan weligii meel kala arag say u kala fikrayaan ina faantid baa talaan waxaan u imaanaynaa mid kale xamarka u imaanay ninka dhalinyarada qofka dhalinyarada xamar ku koray oo 25 ku gaaray 20 wuxuu u yaqaanaa Soomaaliya la sheegay in xamar tahay Soomaaliya ma la sheegay xamar weey calanka buluug ahna waa xaggiisa lama maro ilaa maalintu garaadsaday isagoo arkay Soomaaliya la sheegana xamar buu yaqaanaa dad kale wuxuu yaqaanaa reer gobol waay uu ku leeyahay reer gobol tahay ku dhahay reer gobol wuxuu yaqaanaa dad yani tuulooyinka yimid reer baadiye ah waxba kale ogeyn buu yaqaanaa wixii ka soo haray xamar ah reer magaal ma reer gobol waay uu ku leeyahay reer gobol waa dad reer baadiye camal adduunkana weligiis xamar buu ku garaadsaday inta ku leekaaday wax kale ma yaqaan Soomaaliya la sheegay xamar buu qaba calanka buluug ah waa ku dhinta midka waxaan u imaanaynaa Hargeysa ku koray oo intaas kale ku leekaaday qofka dhalinyarada Hargeysa ku koray oo isaguna 25 30 ku gaaray calanka buluug calanka la ilaaha illa rasuulullah buu yaqaanaa isaga wax kale ma yaqaan oo dadka ay wuxuuna dhageystaa oo wax ka maqlaa oo dadka ugu waaweyn oo siyaasiyiintooda ah oo wax ka maqlaana oo indhaha u ah waa ninkan oo kale siyaasigan ku celinaa uu mahadsan ninkii heesta soo saaray in Itoobiya inaga xigta Soomaaliya ninkaas wax ka maqlaa wuxuu yaqaanaa koonfur inay yihiin bahalo dad qalato dad awooyaashiisa eedooyinkiisa hawariiriis laayay oo wax magarata awaan ah ilaa hadda islaaya waxaa la wadaagi karinba meesha ku aragtaanba ka carar calanka kii watan dila intaas ku garaadsan qof dhalinyarada oo aan wacyigiisu korin oo marka laga reebo dad dhalinyarada oo akhyaaro badan ku jiraan oo si fiican wax u bartay wax akhriyay waaqica la socda marka laga reebo marka labadaas fikir waaweyn ka hadlayo dhalinyaradaas yaryarka ah labadaas fikir bay kala aaminsan yihiin dhalinyarada yaryarka ana dadkii la rabo in indhaha u noqdaan dadkii la rabo inay ummadda isku keenaan oo u ahaa ay ka mid yihiin siyaasiyiinta ay ka mid yihiin kooxaha fanka u jeedaan waxaasay qolo kasta waxaasay soo qaadaysa dadka dhalinyarada waxaasay dhageysanayaan waxa dadka isku daray waa siyaasiyiinta ma garatay dadka labada dhinac dhalinyarada shacabka ahaana waa dad Soomaaliyeed Somaliland waa dawlad maamul madax banaan sharcigooda leh qaanuunkooda leh nabad ka jiro labada sano u dambeysay xoogaa qolqolatooyin ka dhaceen ma ahan laakiin marka runta la soo sheego waa dad nabad dhistay maamul dhistay ismaamula isdoorta halkaas dawlad dhisan koonfur baa ku soo hadhay koonfur loo soo yimaado 91 ilaa hadda dagaal baa ka socda kama badamada markii waqooyi la joogo Soomaaliland la joogo koonfur waxay u yaqaanaa Boosaaso ilaa iyo meesha u dambaysa cirif u dambeeya Soomaaliland hore koonfur baa wadan ma garatay marka ayagiina 5 dawladood baa ka dhisan marka hadii la dhaho haleeshiyo Soomaaliland soo laabato
halala midoobo ma Garowe la midoobaysaa ma Dhuusamareeb bay la midoobdaa ma waxay la midoobdaa meeshaan la dhaho Baydhabo ma Kismaayo la midoobdaa Xamar bay aadaa miyay la midoobdaa mid kasta dowlad buu sheeganaya calan buu leeyahay ciidan buu leeyahay system gaar uu leeyahay marka qolada midnimada ku doodaysa waxaan qabaa hadeertaan reer Somaliland cid ay la midoobaanba ma wajeedo marka runta isu sheego cid ay la midoobaan ma jiraan ayaka reer koonfurow idinka waxaa u baahan tihiin inaad isxalisaan inaad midnimo ka hadashaan maaha dowladda federaalkan la hadlayaa iyo qolyaha maamulka wada iyo dowlad goboleedyada tan waxaa isfeer yaacaya yacni wax badan sacrifice waa inaad samaysaa saa wax badan u heshid calankan buluuga ah Somaliland waxyaalaha ku doodaysa waxaa kamid ah calankan waa nala ku laayay calankan horta waa nala soo horfariisanin calanku waa maro yacni sax muqadas agteena ka ahaado waa kusoo barbaarnay ilaa intaasoo la ekaanaynay calankayo waa cawaalahaas waa yacni waa ku dhimanaa meeshii qof dhulka dhigan aragno waa ka dagaalana laakiin si aad wax badan u heshid waa inaad wax badan u hurtaa calanka waa la bedeli karaa waa maro mid kaloo ka qurux badan baad samaysan karnaa yacni labadaa fikir baa la kala aaminsan yahay ilaa labadaa fikir qolada ay xaqeeda siiso midnimo iyo heshiis iyo waxay imaanaysaa markii la istixgeliyo qolada kale ay tixgeliso ay hadalkeeda dhegeysato ay ixtiraamto hadallada laqwiga ay ka dayso la isku yimaado si fiican loo wada hadlo wada hadalladan bilaa madhaleyska lama rabo laba siyaasi meel isugu tagayaan waa in aqoonyahan ku wada hadlaan sheekaystaan yacni culimadu ay ka mid tahay aqoonyahan ka mid yahay siyaasi ka mid yahay dad bulshada labeentooda ah waa inay ka wada hadlaan odayaal dhaqameedyadu marka shir laga wada hadlayo qadiyadda labada dhinac waa inay ka wada hadlaan culimada aqoonyahanka yacni oo nooc walba rag iyo dumarba leh culimada siyaasiyiinta oday dhaqameedyada dadka bulshada labeenta u ah oo garaadkooda bulshada kariya dadkaasa la rabaa inay ka hadlaan oo si fiican wax uga hadlaa hadda meel baa laba siyaasi la isugu geeyaa danahooda ay ka wada hadlaan waa wada hadalnay bay leeyihin waxaas wada hadal maahan